remind me of quicksand. When you're on it, you'll keep going down. dhammaanba noocyada yasitaanka iyo ku jeesjeeska qofka lagu jeesjeeso ayaa ah mid aan wanaagsanayn dhaawac culusna ku ah qalbiga ibnu aadamka ha noqoto iskuulada ay caruuraha yaryar dhigtaan iyo waliba goobaha shaqo ay dadka waaweyn ku kulmaan ma aysan ahayn mid sahlan dulqaadkii iyo samirkii uu samray dheeldheelka iyo jeesjeeska ay caruurta yaryar u geysan jireen Evan Hill oo ah wiil ka soo jeeda dalka New Zealand foolashiisa hore oo si aan caadi ahayn u dhaadheeraa arrinkaasi oo sababay inay caruuruhu si weyn ugu jeesjeesaan iyagoo ugu yeedhi jiray cunugii ilkaha bakaylaha arrinkaasi oo sabab u ahaayeen labadiisa fool ee hore oo u dhaadheeraa sida ilkaha bakaylaha sidoo kale waxay ilkahaasi sabab u ahaayeen inay in badan oo jidhkiisa ka mid ah ay daciifaan waxa ay dhibaatooyin fara badan ka haysteen wiilkan yar dhinaca hadalka afka uu isku daboolo iyo waliba xataa dhinaca cuntooyinka wiilkan yar ayaa waalidiintiisu waxa ay ahaayeen kuwa aan awood u lahayn inay la raadsadaan dhakhaatiirta si ay wax uga qabtaan ilkihiisa sababo dhinaca dhaqaalaha ah awgood balse mid ka mid ah wargeysyada dalka ayaa waxa ay go'aansadeen inay xaaladda wiilkan yar wax ka qoraan haddaba markii uu wargeysku xaaladda wiilkan yar wax ka qoray lana wadaagay shacabweynihii dalka ayaa waxa si aad uga damqaday in badan oo ka mid ah shacabkii dalka wiilka yara ayaa si fiican u soo caawiyeen halkii ayaana xaaladda ilkiisa wax laga qabtay wiilkan yar hooyadii ayaa waxa ay tiri runtii ma garanayno waxaan ugu abaalgudno dadyawgaasi wiilkayga sidaas ugu soo naxariistay si xaaladda ilkiisa wax looga qabto wiilkan yar ayaa waxa loo soo ururiyay lacagan cadadeedu yarayn si fiican ugu filaatay xaaladda ilkiisa wiilkii yara ayaa ugu dambeyn awooday inuu si fiican u dhoolla cadeeyo lana mid noqday dadka normalka ah isagoo isla markaana wadooyinka ku mari jiray si bilaa khajilaad ah qisadan ayaa waxa ay daliil iyo cadeyn u tahay in haddii ay shacabku iska rab istaagaan laga gudbi karo caqabad walba oo dhibaato ah si yaroo fududna loo caawin karo kooda dhiban haynu is caawinno oo garab istaagno hadda keena dhibaataysan si uu inagana ilaahay inoogu naxariisto aad baad ugu mahadsantiin daawashadiina